آديات مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلامتين علمو والسلامتين دادك إسلامك دونك دعالدي ستشوغا ميلك استاح أتشوغتان أدباني سلام هيا هذا بعد الزلان أدباني سلام هيا سلام كدب مركان سلام كدب وحويان هاوشو iska badan tahay hadda waxaan ka nimay kaftanka siyaasadda oo soo bixi doona berito aad baad ugu heli doontaan isugu jira xigmad isugu jira talo isugu jira iyo qosol dadka qosol kama marmaan mugti absolutely kama marmaan waxa weeye waxaan aad ula yaabay dawladdii hadda cusbeed oo la soo dhisay ee Somaliland Muuse Biixi ayaa hadda laga soo wacay Boorame waxa la sheegay dawladdii dhamayd aan sugayo wasiiradeeda waxay qabanayso inay soo bandhigto nimca xillaa wiil yar oo la yiraahdo dadka heesa ma aqaani wiil yar oo la yiraahdo oo la yiri xamar buu ka heesay ay biis ku noqotay waa shaqadii ugu horeysay ee aadka u fiicnaa ay qabato يعني أوراد في عن وشغلي ورثة قبتوي إمي نمع هلا أي بعصته ماشى الله يرادو بورمي كان دولتي لما يدول الربيمي وحكي بديشو إمي عيدن كبديشو إمي ويل كاير أردن يرادا ومقالة مقدشة تجي أو هسه أو فنسا ميستا ومدة الصومالية ملك سيدجنت هاي عادة إلا يرى الحمر بكيمي وارن آدو يابا مدة كلا دواتة دي تيوك تمتق عنا صومالدو حاول سوما شيغان كنت سوما شيغان مكتي بيلا هذا بيلا دحي مركا ليرا بيلا دحي صومالي لان كليه كمان جرتي وحي كجرتا بيل كستا والصومالي كاميدا بلان بيل دحي بيليدهاي Somaliland beel dhexe bay leedahay koonfur galbeed beel dhexe bay leedahay Jubaland beel dhexe bay leedahay waxa yimaada wasiiro Soomaaliya aad jira siyaasiyiintu way saddex dhaaftaa beesha dhexe heesahoodu waa socdaan beela darafyada kaliya miya bacbacsigo iyo wareerku marka waxaan leenahay wiilka yar dhalinyarada wiilka yar Soomaaliyeed isagoo Soomaalinimadiisa aaminsan oo shaqadiisu ku jirto hawshiisu ku jirto fanku maaha qabiil ma fanku waxa weeye waa luqadda dadka ku hadlayo kale hadda waxa arkaysaa Hargeysa heeso waxay dhageysanayaan inaan garanayn Mareykan iyo Ingiriiska iyo Yurub iyo jigta adalay maxay u dhageysateen waa dhibaato yani kuwa dhageysa kuwa halan nooco laakiin wiil yar ka soo heesay magaalada madaxda Muqdisho oo ku soo noqday gobolkiisii waxa lagu maqaalaa aabihiisoo 65 oo laba xidigla ah oo Somaliland ciidan u ah baa la garaacay black aabihi muxuu geystay isagaba ka soo qaaday dambi ay diidayso dambi gal aabihi muxuu geystay hooyadii maxay geystay walaalihii maxay geysteen arin aan looga yaabo weey cadaalad darro hadhow leeyahay hadhow to Soomaalidu waxa ku oranaysaa marka tiraadid Somaliland maxay ugu go'aysaa waxa ku leeyahay anaga cadaalad darro aan tirsanayna anaga waxaan Soomaaliga ugu go'ayna saasana ku sameeyay waa 20 years 40 years waxa saasana ku sameeyay saasana loo galay marka cadaalad darradu ma dhamaato cadaalad darrada haddaad leedahay waa adduunkan oo dhan there's no fair ma jiro meel kasta adduunka tagtid ciyaalkaaga dhashay marmar waxa ku leeyahay this is not fair ba koranayaan fair maaha waxaad nagu sameynaysaa fair adduunka ma jiro ba waxay cadaalad adduunka ma jiro hada tahay meel ba cadaalad u raasanaya laakiin ma bahashaad xogaa yare qurxusid baa loo baahan yahay wiilka yar waxaan adduuna dhageysanayo Muuse Biixi haleenahay wiilka yar ku habsaami waa wiil yar oo dhalinyaro waa wiil yar oo meel kasta maanta aadi kara wadan kasta Mareykan buu aadi kara Talyaani buu aadi kara Faransiis buu aadi kara Kenya aadi kara Ethiopia aadi kara marka dadka Soomaaliyeed Somaliland waxaan u sheegayaa aqligeena ka saara maanta qof Muqdisho tagay ma dambiile ka dhigtaan ka dhigina waa dad Soomaaliyeed hadda xitaa go'aysaan oo aad rabtaan ma godaan cadow ha ka dhiganina
ciyaalka yarana ha ku beerinay ma cadow yihiin waa dad Soomaaliyeed waa dad walaalihiina waa dad islaamtihiin hadda maalin dhaweyto qudus maalintii dhaweyto Trump uu lahaa uu ogolaaday inay noqoto usulka laga bahalkeeyo Somaliland waxay lahayd adduunka muslimka way masuul yimaada dadka muslimka ay walaaloobaan waxa weeyaan waan la israaca waa in mid la noqda waa in meel looga soo wada jeestaa dadka Soomaalida ama Djibouti ha joogo ama magaalada Muqdisho ha joogo ama kuwa Soomaali galbeed ha noqdo ama Hargeysa ha joogo dadka Soomaaliyeed waa dad walaalaha hadda aroos baan ka imi arooskan ka imi taqaanin waa wiil ku dhashay magaalada Muqdisho iyo gabar ka soo jeeda gobolada waqooyi baan ka imi waa dad saas la isugu arooso waa abti habar yar ilmaadeer ilmaabti saasa loo kala guursanayaa maanta haddii aad ma halkan iga timaadid kaligay aan Soomaali ka ahay iyo oran maysid wariyaa tahay waxaad oranaysaa Soomaali ma tahay luqadda markaan Soomaali ku hadlo waa farxaysaa waxaad oranaysaa nin Soomaali aan ay warano halkan aan deganay kaalay raaco wasla qabsanaynaa marka dadka Soomaaliyeed waa dad noocaas dadka Soomaaliyeed waa hal maanta haddii aad gabadh soo doontid ama gabadhan ka doono magaalada Muqdisho ka doono ama ay Hargeysa ka soo doonaan oo dad walaalahay la weydiin maayo war maxaa tahay waxa la leeyahay waa nin Soomaaliyeed waa nin caynkaas waa nin aad garanaysid haddii aad si abtirsataan waxa laga yaabaa inuu awoow ku noqdo adigu almaabti noqotid aad odaga hebel baa ku dhalay miyaa ha wallahi saalkaas aan iska soo galaa tiraad Soomaali waa dad yar wey waa dad yar marka dhalinyarada yar ay soo koraysa yaan la gelin mugdi loo gelin magaalada Muqdisho ay tahay cadawga kaliya ee Somaliland ay leedahay udhiga dad Soomaaliyeed ma yihiin udhiga dad Islaami ma yihiin udhiga dad walaalihiin ma yihiin udhiga dad ka koowaad ee leedihiin ma yihiin iyana soo kale laakiin wiil yar dad maanta oo dhan baabacsan ciidan kamisa ku baxday baasiin misa ku baxay xabaday ridaan dad ay kaga nixiyaan dad ay ku joogsadaan dad ay waxa soo dhim xaq kuskreeyay anigu waa rumaysan waaya markii dambe waxaan la hadlay taliyaha booliska qaybta 22aad ee Boorame waxaan maxaa jira maxaa iska basuuda wiil yar oo Muqdisho aadan la ku soo sheegay inuu soo galay xaafid hebel guri hebel oo maxaa dhacay dad xamar ka yimi waad ka soo heesay maxaa dhacay qodobka 25-aad ee Somaliland wuxuu qeexayaa oo sheegayaa imaan laga soo heesi karin laakiin siyaasaddu waa loo aadi karaa ragga maanta siyaasadda ku jira wasiirka xaga marka xaga ku soo hungoobaan dhinaca kale u soo cararaan siyaasadda la galaa waa la cafiyaa ka xildhibaanka xaga marka xaga yimaado waa la cafiyaa kalmada reeyal oo inaan isku ciyaarin meel uga soo wada jeesta haw eegina reer haw eegina shakhsi dawladda idinka sixi kara dawladda meel uga soo wada jeesta waxaan ugu sameeynaa wiilka yar waa khalad faraha laga qaado ku mudaharaada هذا بورم كليا لقى مدهرادي هرقيس لقى مدهرادي ملك لقى مدهرادي قصوايو واسكرير وير يغلف تدعو مدهرادي يم قصوا يو كيم واسكرير واسقف واسك شخص كان هي دالين ونكد لسان نيس حي سان سومال نبدي نوقت لنا هذا حتى قايسان الذي هو قاينا there is no problem وقاي كرتان لكن سي شرف له منال له walaaltinimo leh ummadda iyo dadka yaan la isu bahalay